dhumadiyo eebbow nin xiran dhaadadkaan ahaye eebbow bir laysdhaafshay bay dhab igu siiyeene eebbow kolkay dhababi waan dhogor xumaadaa haddaad dheregto eebbow beryaad dhaxal ka haysaaye eebbow dhadhamo fool xun waa lagu dhukaamaaye eebbow waxaan dhuunyannaa laba dharbaanoode dhegaystayaal qarniyadii 18 iyo 19 dalka Itoobiya madaxdii soo martay waxaa maraha ugu caansanaa boqor Menelik kii labaad waxaa la caleema saaray 1889 dhabtiina wuxuu ahaa Itoobiyada maanta la yaqaan ninkii dhidibada u aasay isaga ayay taariikhdu u aqoonsan tahay inuu ahaa juqraafi ahaan xaddiga weyn ee dalkaasi haatan leeyahay ninkii la ekaysiiyey boqorkii wax la qaybsaday xoogagii Yurub ee xilligaas dunida ka talinayay Afrikana kala hooshaayay sida Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Isbaanyoolka iyo qaar kale taasi waa dhab iyo biyo kama dhibcaan ha yeeshee waxaa iyaduna dhab iyo biyo kama dhibcaan ah ciidamadii boqorku inay hoog iyo ba ku fali jireen ummadihii kale ee ay boqortooyadiisa dariska ahaayeen askartiisuna ay dagaamadooda ku soo weerari jireen ummadahaas oo ay Soomaalidu ka mid ahayd sina looguma ogolayn inay hantiyaan hub iyo saanad ay guutooyinkii boqorka isaga caabiyaan sidaa darteed iyaga ayaa inta badan laga gacan sarreyn jiray iyaga ayaana duulaamada naf iyo maalba ku waayi jiray waxay muddo sidaas ahaataba waxaa la soo gaaray 1913 sanadkii uu geeriyooday boqor Menelik kii labaad ninka naxay iyo nin ku farxayba waxay ahayd dhacdo weyn oo waayaha gobolka dhab u gelgishay maantaana waxaa la iswada weydiiyey torow geerida boqorka maxaa xigi doona yaa u darsan doona yayse uga rayn doontaa su'aalahaas in jawaabahooda la ogaadaa waqti badan ma qaadan durbaba wixii geeridiisa xigi lahaa way soo ifbaxeen waxay soo noqdeen wax aan la filayn waxay ahaayeen jeer ay dhaceen wax aan cidina malayn karayn dad badan oo gudaha dalka iyo dibaddiisaba ku dhaqnaa ayay filan waa ku noqotay oo yaab iyo irkiga dhabanada la qabsaday markii la caleema saaray kii ugu horreeyey boqor aan kiristaan ahayn oo ay Itoobiya yeelato muddadii dheerad ee ay taliska dhexalahayd boqor Liis Yaasuu oo muslim ahaa ayaa si lama filaan ah kursigii boqortooyada ugu dangigsaday durba xiisad la wada dareemay ayaa geyigii dhan walba ugu fiday madaxdii kaniisadaha iyo xubno badan oo qoyska boqortooyada ka tirsanaa ayaa wixii dhacay dhaxal wareeg u arkay markaasna si aada uga umlay kuwaas baa isla markiiba bilaabay qorshihii ay boqorka cusub kursiga kaga tuuri lahaayeen ka hor inta aanu ku xididaysan ama aanu Istanbul xiriir adag la samaysan Itoobiyana aanay sidaas kaga mid noqon qaramadii muslimka ahaa ee uu Turkigu calanka u sidi jiray dhinaca kale haddii arrinta laga eegana geeridii boqor Menelik waxay ahayd dadyowgii ay dariska ahaayeen dhacdo ay ku farxeen waxay ahayd wanaag iyo nabad dhacdo ay ka fisheen waxay u qaateen dhacdo ay kaga raysan doonaan gulufyadii hubaysnaa ee uu ku soo saari jiray iyo canshuur madaxdii ay askartiisu sanadka labadiisa madax ka urursan jirtay dadyowgaas oo Soomaalida galbeedka degtaa ay ka mid ahayd ayaa waxay hididiile horley ku korodhay boqor Liis Yaasuu kolkuu xarun cusub ka dhigtay Harar oo ah magaalo iyo imaarad muslimiinta geeska Afrika taariikh xusuus mudan u lahayd taasina waxay dhashay boqorkii cusbaa hambalyo iyo taageeraba inay ugu soo qulqulaan ergooyin kala duwan oo ka kala tirsanaa muslimkii gudaha dalka ku sugnaa iyo cirifyada ummadihii dagaankoodu ahaa waxaase xusid gaara mudan halgamaagii Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan inuu ugu horreeyey madaxdii muslimka geeska Afrika kuwoodu xiriirka dhow la samaystay boqorkii dhalinta yaraa ee ay Itoobiya yeelatay si kastaba ha ahaatee Soomaalida galbeedka erga ka socota ayaa iyana magaalada Harar boqorkii ugu timid waxay ahayd erga ka kooban rag maqaawiira oo ogaaskii madaxda dagaankooda ugu caansanaa uu hor socdo waxaase ka magac dheeraa oo isaguna ku jiray
maansayahanadii gobolka iyo xilliga kuwii ugu caansanaa midkood qamaan bulxan ayaa ergada ka mid ahaa. markay yimaadeenna marti la maamuuso ayay boqorkii cusbaa u noqdeen. hase ahaatee qamaan iyo ergadii uu ka midka ahaa oo weli magaalada Harar ku sugan ayaa waxaa bislaaday qorshihii shirqoolka iyo afgembiga ee Addis Ababa muddada laga maleegayay. buuralayda sare ciidamo laga soo abaabulay ayaa lagu warhelay iyaga oo goor subax ah magaaladii ku gadaaman oo irdaheedii taariikhiga ahaa hortuban. dhibaatooyin aan qiyaas lahayn oo naf iyo maalba leh ayay geysteen, waxaase ugu daraa dilkii boqor Liis Yaasuu. dabadeedna dadkii magaalada ku sugnaa waxoodii gumaadka ka badbaaday ayaa waxay noqdeen wax cagaha wax ka dayay iyo wax la qabqabtay. nasiib darro ciidankii magaalada ku soo duulay dadkii iyaga oo nool ay gacanta ku dhigeen ayaa waxaa ka mid ahayd ergadii Soomaaliyeed ee sidaan soo sheegay boqorkii la dilay u martida ahayd. iyagiina xabsi baa lagu tuuray, waxayna ahayd sanadkii 1916. haddaba sanad ku dhowaad markii halkaa ku silcayeen ayuu qamaan bulxan yeelay maantaa oo kale isaga iyo raggii la ayniga ahaa wixii ay bulshadoodu ka fili jirtay. wuu gabiyey, wuxuu tiriyey tix murugo badan oo rabbi bari ah, tix uu ku tilmaamay xabsigii lagu hayey dandarro wixii uu ku mutay. meedisi aad moodo dhiig iyo ilmo anqaas laga sameeyey in lagu qoray ayuu eebbe ugu ashtakooday. dhab wuxuu uga sheegtay askartii meesha ku haysay naxariis darradii ay kula dhaqmeen iyo daryeelli'idii ay ku eeganayeen. sida tixda ka muuqan doonta inkastoo inuu baxsadaa ay marmar ku soo dhici jirtay, haddana riyo uunbay ahayde wax uu ku dhaqaaqi karayay ma ahayn. oo nin orod iyo socod aanu midkoodna ka suurogeli karin sidee buu ku baxsadaa? cunnoxumadii meesha ka jirtay ayaa geyeysiisay inuu tabar beero, inuu dhumucda dhangad la ekaado, inuu weydoobo oo macluul la dirgan waayo. nin nool baa inta derbiya ka booda baxsan karee mawgu maanta 10 tallaabana isdaba dhigi karaa? waa maya jawaabtu. si kale kuma garatide waxay gaarsiiyeen heer ay noloshiiba dacar u dhadhantay, say wax milga ah ayay u yeelan weyday. markaas buu si kal iyo laaba wuxuu eebbaweyne uga duraansaday inuu ka koriyo saxariirtii isaga iyo ergadii kaleba la marsiinayey. haddiise aan taasi looxul maxfuudka ugu qorayn, wuxuu ka beriyey inuu xaggiisa u oofsado. ileen nafay naf ma tahay looma noolaado, way kugu jirtaana looguma mintidee. maantaas buu qamaantiriyey tixdan aan idiin marin doono ee uu asaaska uga dhigay qayb hor leh oo uu ku soo kordhiyey qaybihii la yiqiin ee maansada Soomaalida, ahna qaybta aynu ku magacaabi karayno maansada xabsiyada. wuxuu qamaan ku alaladay: eebow dhistiya ways hayaan dhagaxda waaweyne, eebow in dhuub la eg cirkay nagaga dhaarteene, eebow dhulkay naga qarsheen dherarka loo yaale. dhudhummadiyo eebow nin xiran dhaadadkaan ahaye, eebow bir lays dhaafshay bay dhab igu siiyeene, eebow kolkay dhababi waan dhogor xumaadaaye. eebow waxmaas dhiribsan baan dhab ula seexdaaye, dhiiggayga eebow ka jecel dhadiya hoobaane, oo dhalasho laysugu naxaa nama dhextaalgaale. eebow dharkiya way marshaan dhexirka naaguuye, eebow dhaqaaq male ninkii lagu dhidbaadaare, eebow dhallaan sidii galbaan dhadandhateeyaaye. eebow ma dheelmado intii dhagax la tuuraaye, eebow dhurwaa sidii haddaan dhibi lahaa ruuxa, eebow dhir baan mari lahaa dhacama oodeede. haddaad dheregto eebow baryaad dhaxal ka haysaaye, eebow dhadhamo fool xun waa lagu dhukaamaaye, eebow waxaan dhuunyanaa 2 dharbaanoode. eebow ma soo kala dhacaan 2 dhoomoode, dhanuu noo rid aakhiro jannaan dhagagsanaynaay. ducada qaybteedii hore ayaa qamaan laga aqbalay. xabsigii iyo ciqaabtiisiina eebbaweyne wuu ka koriyey oo waa la sii daayey. isaga oo bad qaba ayuu ciid iyo reerahoodii dib ugu noqday. maantaa kadibna wuxuu noolaa 12 gu. marahaygana waa guyaashii uu tiriyey gabayadiisa kuwa ugu culculus ee ugu murtida badan, Soomaaliduna ay ugu jeceshahay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa inoo joogo. waa inoo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo iyo qayb kale oo ka mid ah maansayahanadii Soomaalidu tixihii ay kaga cawdeen xabsiyada iyo noloshooda.